ardaydii ugu badnayd ee kasoo jeeday Soomaaliland ayaa ka qalin jebisay jaamacadaha dalkan Uganda ardaydana tiradoodu gaadhayso in ka badan 60 meeyo ayaa munaasabad qalin jebina loogu qabtay hoteelka weyn ee Equatorial Hotel ee magaalada Kampala qalin jebintana ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay xalfadan ayaa waxa kamid ahaa safiirka u fadhiya Soomaaliland dalkan Uganda Maxamuud Faroole ilaahay waxaan idin ka rajaynayaa ujeedadii aad wax u barateen oo aan huba inay tahay mid aad rabtaan inaad dalkiina iyo ummadiina iyo ehelkiina ku anfacdaan iyo naftiina inuu ilaahay idinku guuleeyo iyo Mujaahid Ismaaciil Xandule isagoona ardayda kula dardaarmay inay u dulqaataan shaqalaanta ka jirta dalkooda hooyo waxaan in yaro dardaarno jeedinayaa ardayda qalin jabisay waxa weeyaan waqti fiican baa la kulanteen waqti adagna waa la kulanteen waxay ahaan lahayd maanta sharaftiina ay ku dhamaan lahayd oo idinku si fiicnaan lahayd idinku maanta nin walba leey degdeg u soo galo shaqadaadi halkiiba diyaar ka tahay soo dhaqaaji waa sali gaari doona sida taa maanta u gaarin bay taasna u imanaysaa waxaan idin leeyahay oo dardaarana adduunyada maalin qura laguma dhisin hamadiinu yaanay noqonin ina tahriib gashaan amba meel kala qoorta u taagtaan ko maanta halka aad joogtaan waa halka hore ugu tin berrito ku dalka qabanaya wax waliba ay sugayaan waa idinka u adkaysta waqtiga marka aad taagtaan ninkii dhulkii ku noqday u adkayso oo markiiba inaad shaqo iyo xafiis qabow fadhiisataa wax suurtagelaya maaha waxa kale goobta ka hadlay gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliland ee dalkan Uganda Cabdirasaaq Maxamed Daaw muhiimadu waxa weeyaan si jaaliyada iyo ururka ardayda iyo dhamaantood ay u wada shaqeyn lahaayeen taasuna waa mid aan aad iyo aad ugu dadaalay iyaguna ay guusheeda ay tahay qofkuna hogaaminta marka laga hadlayo qofkii ogolaaday inuu hogaamiyo qofkii ogolaaday in la hogaamiyo unba uu hogaamiyo nimaan ogolaaday in la hogaamiyana cidna ma hogaamiyo marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladda qiimaha iyo qadarinta leh ee inuu ka dhamaan aynu dabaaldegayno ardaydina sida fiican u qalin jabisay sidoo kale waxa madasha ka hadlay gudoomiyaha dalada guud ee ardayda Soomaaliland ee dalkan Uganda eedimana u soo jeediyay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland isagoo sheegay inaanay ka qayb qaadan baahida ardayda Soomaaliland ee wax ka barata jaamacadaha dalkan Uganda Saleebaan Cabdi Xuseen 750 arday waa wax guul lagu tilmaamo oo aan indha laga qarsan karin tahayna in loo soo jeesto marka haday dawladda tahay iyo wasaaradda khuseysaba haday tahayba waxaan u soo jeedin leeyahay in xiriir dhow la yeeshaan kana warayaan ardaydu waxay ku sugan yihiin hadii aan inta kaga tago ardayda iyo tiradooda caawa waxaynu dabaaldegaynaa ardaydan quruxda badan leed arkaysaan numberkan wuxuu ka mid yahay numberkii ka qalin jabiyay kuma dhama halkan tiradoodu marka loo eego halfkiin bay noqon lahayd 750 arday waa hoolkan kala badhbi buuxineed caawa laakiin intan baa nasiib u heshay caawa inay timaado badway joogan waqtigu musaamixin halka nagala soo qayb galaan 30 arday baa dalka Uganda ku sugan 720 arday kalena waxay joogan wadankii ayay ku maqan yihiin yana qaar kamid ah ardayda oo si fiican u garanay luqadda afka Soomaaliga ayaa u mahad celiyay dhammaan intii ka qayb qaadatay munaasabadan sheegay inay ku faraxsan yihiin qalin jabintan iyo guushan ay gaadheen af Soomaali si fiican maxay anyway I'm presenting even Zulekha inaga waa Soomaaliland laakiin wadadka lume so at least yeah we are happy in at least hada we are part of you guys wad mahsantihin والله حفلة وحفلة عاد بأكح بدنتي هاي ود محسنتين والله عن قبضها مثل they call إنانتا إنا ما دياشا ها Yeah, I'm just trying to make you laugh. I'm a journalist by profession. دنتي العشران وحول دنتو وواح خفيفة يانسي براك لقون وقرارة شبيسة قارية نقول وردنت هلا العليا ضدكم من يملا هاي العليا. The VIPs, brothers and sisters,
I'm very glad to be here tonight celebrating this special occasion. waxaan jecelahay inaan mar labaad idin bayaamiyo ardayda reer Soomaaliland ee sanadkan 2013 ka qalinjabisay jaamacadaha kala duwan ee dalkan Uganda iyadoo aan caaw halkan noogu sugnay dhamaantood qaarna ay ku waqan yihiin madankii qaarna ay jidkay noogu soo jiraan waxa idin hor yaala dhibaatooyin badan oo wax laga qaban karo runtii shaqadu ma aha tan maanta aynu ka wada fikirayna inaynu meel madax la galno laakiin shaqadu waxa weeyaan nin walba wuxuu intaas oo kaliyadood buu imika inaan ku noo tirnay oo ka soo baxdeen taa macnaheedu waxa weeyaan nin walba inta uu feegaro wadanka wax ka bartay isagoo og wadankeena wixii ka dhiman inuu la tago oo halka isagu wax uu shaqada dalka u baahan yahay kana shaqeysto una shaqeeyo bismillaahir rahmaanir rahiim halka waxaan uga hambaleynayaa ardayda Soomaaliland waxaan leeyahay halkan ku qalinjabisay anigoo ah Iimaan Ismaaciil Cali hambaliyo dhinaca kale boqolaal arday Soomaaliyeed ayaa ka qalinjabiyay sanadkan jaamacadaha ugu waaweyn ee dalkan Uganda sida KU Bugema Cavendish St Lawrence Makerere Sakima Kampala University gabagabadii munaasabada ayaa gudoomiyaha xusbiga u ciiday dalkan Uganda Master Khadar Bitujor gudoonsiye TV-ga caalamiga Kalsan TV shahaada sharaf iyo waliba buuga lagu magacaabo Samatalis ee ka waramaya taariikhdii Xaaji Cabdi Waraabe waxa ugu dambeeyo oo aan halkan ka xusi doona saxaafadda oo quruxda lafteeda qayb lixaad la ka qaadan doonta iyadoo aan saxaafadda ahaan gudoonsiin doono wariyaheena ambaagaasimaheena Kalsan TV Eglan Saalax oo iyaduna mudan in la gudoonsiyo isla gudoon